waxay yidhahdeen daraasaadka cilmiga ee dambe xataa caafimaadka qoladan maanta ka shaqaysa waxay tilmaamayeen daraasay tilmaameen cilmiga Hong Kong ay ku sameeyeen oo dadka Hong Kong baadheen markaas waxay yidhaahdeen laziness-ka iyo waxqabad la'aanta iyo sigaarka bulshada keebaa dadka leyntiisa ku badan bay dhahay sigaarka waxa la wada yaqaanaa inuu sun yahay oo boysiyo dadka lahayd cagsiga iyo iska fadhiga ka batay iyagu daraasaday sameeyeen qolana 6,800 meelaasay noqotay qolana 5,700 maanta waa kuwan yidhaahdaa xanuunada ugu tirada badan lee bini'aadamka ku dhaca waxa keena bay yidhaahdaan maxay exercise la'aan exercise-ka la sheegay inaad boodboodo quran ma waa inaad wax qabato laakiin haddaad iska yuururto una fadhidid qof fadhiya habeen iyo maalinba caafimaadkiisaba khatar ku jira ka kaalay nolosha inaad waxtar ku yeelato iyo wax soo saar inaad yeelato ee waxa khatarta gelaya waxa weeyaan maxay adiga caafimaadkaagii baa khatar gelaya walidaalka bay atabada maanta waxay tilmaamayaan qofku inuu nashaad iskeliyo ma macaan baad qabtaa ma sokor baad qabtaa ma kan baad qabtaa maalintii intaa soco intaa qabo yani waa wax qabo fadhigu marka caqligana uma fiicna iska fadhigaan waxba lagu qabanaynin jirkana uma fiicna aakhirana uma fiicna adduunna uma fiicna laziness marka nolosha meel laba wax kaga male ee waxa meesha taala qofka mu'minkii inuu muntij noqdo qof wax soo saar leh inuu noqdo weliga hamoodina waqtigu ku dhaafay dadka barba isle faataka alqataar ka sheegi jireen yani waqtigiiba tagay intaan meesha fadhiyay inta ku hadhay cimriga baa wax soo saar yeelan karta laga yaabo dadka baraysa oo maanta kuntan jirbaad ama waxbaad baran karaysaa dad ba kuntan jirraynta ku bilaabeen culimadii waaweynay dunida noqday ma garanaysid cimrigaagu intuu ku gabagaboobi doono ma garanaysid inta ilaahay adiga chance ku siiyay adiga waxa ku xilka ku saaranay wuxuu yahay inaad rumaysato cimrigu wali mutasac baa jira nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam isagoo taa inagu dhiirinaya wuxuu tilmaamayaa in qaamat as-saa'a وفي يد أحدكم فصيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها نبقى عليها دو قيامه حقا كصوب لا موسوقعه وأدقعنتك هيسو فصيلة ده وحل إذا جت مريت كير الله أبقى ليه جت مريت إذا أدقعنتك هيسو هذا تكجر سينكرتين هذا أبقى شبه نبقى له يا أبقال بير هذا تكجر سينكرت بير وإننا يدان قيامة بإننا نركينا بين فردنا ونولين وقبوبي سومالي ده أفرتن شركة كو قبوبي ده سوما في سومالي مركو بنادم كبو حق بدنا مركو قارو أيو ده هذا وان قبوبه وحولي بوي قد بعضين بنادم كو عقلي كو كقبوبه هذا مانك كقبوده أيو ما تقبوده انت كلا وحبات قبان كرتاه انت كلا وحبات قبان كرتاه ساوجد النبي عليه الصلاة والسلام وحينات المامية قبل الموت إن فرص جرو أنت جاردك كهر رسالة فرصات هيسطو فرصات وحلوقو قبطين هيسطو واحد يريسان يساوي حوي النقضة واحد يريسان سبحانه قد شيء ده صدر قرآن أين القيب توا وح كل يرسو معه حتى لا وهذا المالك استصدر قيب وقرب القرآن كردمين تصدر قيب وقرب القرآن كردمين waxay dhahaan dhowr iyo 10 sanadood dadku ku dhameynaysa hadaad maalin kasta sadar qaybto hadda waa sadar hal sadar waxay dhahdaan wax qabadku taraakumka beeritaanku qiimaha ku sameeya markan aad qabanayso wax yaraantiisa ayay ku muuqanay haddaad maalintii hal safxa qorto هل بيج هتاد مالنتي قرطو سنتكي مسات soo saaraysa weeraan laba buug baad qori kartaa sanad kasta way sanadku waa 356 maalmood dad maalin kasta page qorto macnaheedu waxa weeyaan ugu yaraan buug 300 page ka badan ayaad qori kartaa laakiin hadaad tiraahdo ma xaashi aan qoriba buug noqon doonta maxaan xaashi ka qori doona aqoontu iyo wax qabadku iyo waxtarku taraakumka inay biirtaabay wax ku noqota wax kasta oo biira aakhirka wuxuu tagaa maxay wax qiimo leh buu noqdaa taas waxay keensanaysaa inaad waqtiga waxba yaraysanin
in wadaada wuxuu ii tilmaamayay jaamacad buu master degree ku qaatay isagoo shaqo kale markaa wada inta uu gaariga soo socday uu gurigiisa ku sii socda buu dhageysan jiray una cajiladii jaamacadda warkeeda inta loo duubo ayuu wuxuu dhageystaa inta maxay uu gaariga sii wado hadda intaad gaariga gurigaaga jaamacadda inta tagtay gurigaaga ku sii socota inta aad dhageysato ayaad ku qalin jabin kartaa laakiin waa hadday taraakumto de waa haddaad maalin walba sida tan u dhageysanayso marka waxaan uga dan leenahay camalku iyo waxqabadku iyo waxbarashadu iyo wardigu iyo wax waliba in la biiriyaabay wax ku noqdaan in la joogteeyaabay wax ku noqdaan camalka inaad joogtayso ayuu wax ku noqonaya ilaahina wuxuu ina leeyahay walaa tahinu walaa taxzanuu waantum laclawna in kuntum mu'miniin war dadka mu'miniintow wahniyuu idinku dhicin haniyad jabina hana murugoonina idinkaa koreeya baa ilaahay tilmaamaya haddaa kuwa mu'miniina tihiin haddaad dariiqa iimaanka raacdaan waa koraynaysaan xataa markan awooddaadu intaad qaban kartaa ha yaraata laakiin intaa qabo sawgeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu leeyahay waka'ayyin min nabiyyin qaatala macahu ribbiyuuna kathiir famaa wahanuu limaa asaabahum fii sabiili illaah wamaa dacfuu wama stakaanuu wallahu yuxibu asaabiriin badanaa inta nebi qaatala macahu ribbiyuun maciisa ay la dagaal galeen kuwo rabbi loo nisbeeyey dad ilaahay isu dhiibay oo may daciifin wixii dhib soo gaadhay may isdhiibin may isdhuldhigin ee waxay noqdeen dad walow markaa ha lagaba xoog batee wada camalkii ilaahay intay natiijada ka gaadhayaan ayuha alaxiba marka xadiiska kan wuxuu nebigu ku gebagabaynayaa calayhi salaatu wasalaam weer tilmaamaysa ereyga low ah wixii kaa tegey tiiraanyadooda inaanad isku mashquulin oo wuxuu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam ha odhanin bal ma haddaan sidaa iyo sidaa yeeli lahaa waxaasaa soo bixi lahaa saasaa noqon lahay fa ina low taftaxu waxay furtaa low waa camal shaydaan albaabka shaydaankay furtaa oo maxaa jira alqadaa walqadar mar hadduu ku dhaafo lama calaacalo qaar baa waxay yidhaahdeen low kaanuu cindanaa maa maatuu wamaa qutiluu hadday nala joogi lahayn waa kuwo munaafiqiina waxay leeyihin muslimiintaa soo dhimanaysa hadday iska joogi lahayn oo nala fadhiyi lahaayeen maa maatuu wamaa qutiluu manay dhinteen labana dileen ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u tilmaamayaa قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وحتى قريه نادا كجرتان انت وقتك وكرنا ما تجريد ويوم الله يبا إله إليه سبحانه وتعالى سأوجد لو هاي علماء قارين هذا موضوع التعليم كون بيكون في عنتي يلا استعمالك راه ومثلا جامعة بتكسو غالي جبسي wixii aad barataa marketka aan shaqo ku lahayn qof yar baa ku yidhi ila tale markaasaa waxaad ku tidhi maanta haddaan jaaniska haysan lahaa low kaan haddaan jaaniska haysan lahaa kan maan galayna kaasaan geli lahaa waa litacliim qofkan baad rabtaa inaad tidhahda war natiijada anaa waddadan soo marayo ma fiicne waxaad isku daydaa maxay kan kale inaad saas daraaddeed buu nebigu lahaa low istaqbaltu min amri ma stadbartu markii ay uu tilmaamayey dadkii soo xidhay cimrada ama xajka soo xidhay ee xalaaloobi kari waay ee hadyiga waday haddaad hadyadu waddo ma xalaaloobaysid haddaan arrinkayga hadda wixii soo dhaafay hadduu hadda ii bilaabmi lahaa buu nebigu leeyahy hadyigana maan soo kaxeeyeen dadkana waan la xalaaloobi lahaa buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam culammada waxay yidhahdaan markaa min baabi tacliim iyo meelaha hadday tahay waa bannaan tahay laakiin baabu calaacalka hadday tahay bay leeyihin ma bannaana وهو محي قل ما شاء الله كان وين رميستا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما وحي تغي وحبك ما بدالي كرتين ما دام أنا وحبك بدالي كرينين إلهي وحوقت الماما وما تشاءون إلا أن يشاء الله إلهي وحدون أمو يعني
wax kaloo idinku dooni kartaan ma jirto in allaha kaana caliiman xakiima bale waxaad ka calaacalaysa waxaaba laga yaabay khayrku saa ku jiray وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم waxaan kusoo koobaya markaa xadiidka dhammaantiiba nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay mu'minka waxtarka ah ee nafciga leh ee xooggiisa iyo caqligiisa iyo wixiisu qabanayo nashiidka ku firfircoon qawiga ah ayaa ka khayr badan mu'minka daciifka ah mu'minnimaduna dhammaanteed waa khayr marka horeba dardaarankaana weyna siiyey wixii ina anfacayana inaynu samayno ilaahayna inaynu gargaarsanno cagsiga iyo kasliga iyo waxaana inaynu iska dayno wain asaabaka shay-un falaa taqul haddii wax sidii aad rabtay natiija u dhici weydana ha odhanin buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam haddaan sidaa iyo sidaa yeeli lahaa laakiin waxaad tidhaahdaa qul qadara allahu wamaa shaaa facal faina low taftaxu camala ashaytaan صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين